xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta ka hadlay deynta badan oo lagu leeyahay golaha deegaanka Gabiley taasoo ay sheegeen in laga leeyahay gaadiidka dawladda hoose soo iibsatay iyo banka Gabiley sidaana waxay xildhibaanadu ku sheegeen shir jaraa'id oo ay ku qabteen hotelka Booq ee magaalada Gabiley. maanta bishu tahay 10 waxaan halkan shir jiraayad u siinaa in shir saxaabadeed ku qabanayna miisaaniyada maanta Gabiley soo gasha ay waqti ugu badnay taariikhda kala noolaa soo martay magaalada Gabiley sanadii hore qodorsayga miisaaniyadu wuxuu dhaafay 17 bilyan waxa ku jiray ilaa labaataniye mashruuc oo aan qodorsayna qabto lacagtii oo soo xirootay lama qaban haddana wada hadal dheer oo maca wasaaradda iyo dhexdhexaadin dirtay waxa loo baruuxi sanadkii hore baa xisaab xidhka ma hayno wixii hore waxa halka ku xidhnaa cagaftan maanta laga hadlaya waxa ku jirtay miisaaniyada sanadkii hore mar labaad baan sanadkan ku darnay miisaaniyada oo sanadkan bishii afraad bay ku jirtaa details in la bixiyo lacagta cagaf nasiib darro maanta mushaharkii shaqaalaha dhulka xaaliya qaadan lahaa walillahi waxa weeye deynta dawladda hoose dibadda laga leeyahay miisaaniyadeeda way ka badan tahay cagaftan iyo gaariga dabdamiska ah iyo isku rogada noo shaqeysa iyo xaajiyada shaqo intoo waa deyn dadkii lahaana way doonayaan miisaaniyadana laba goor bay galay lamana bixin madaxweynuhu xadhigu ka jaray sanadkii hore madaxweynuhu wuxuu xadhiga ka jaray cagafta dabdamiska maxaa ku raadayay isku rogooyinka labada isku rogo mid dirqiba lagu bixiyay laakiin mid lama bixinba lacagtaas meel alla meel ay martay lacag dakhli ka badan oo weligeed Gabiley soo 20 bilyan oo doolarka miisaaniyada weliba soo xirotay tii qabsanay tasanadkana bishii lixaad baa la marayaa xisaab xid ilaa sanad iyo barka aan wahayn ma hayn qaranka iyo cid kasta oo shacbiga ummadda reer Gabiley ay khusayso waxa uu sheegay meesha waxa ka dhacay waxaan aqliga insaanku qaadan karin oo dhaafay aqliyada insaanka سادراتي waxaan aaminsanahay hanta dhowr ilaa 5 bilood wara document haysta oo soo saaray karilayo aan meel baa laga haystaa ay kaligiisa baash meeshan waxa inaan qaato way ka badan tahay lacagta wax qoflusado way ka badan tahay meesha waxba jiray wixii jira ee bulshada balada anu waxaan oran lahayn tan xildhibaanada maanta waxay noo taagan tahay in hadii aad talaabo sharciga waafaqsan lagu qaadayo arintan in dhammaan xildhibaanada iyo risaalada ma qabxeen maartaas waxaan aqbali karayno oo la aqbali karayo way dhaaftay hadii ku beelo dawladda loo sheegi jiray way dhaaftay annaga waliba aan ku hadlayo xisbiga xaafadka afkiis oo naxad campaignerkii afartii goor ee tartamay kulmi maanta waxaan leenahay balaarintaas aan la eego si qoto dheer oo iibaan qabta oo fikrad leh oo mas'uuliyad leh oo indheer garadnimo leh oo wax aragtiin dheer leh oo danta ummadda ka hadlaysa haloo halaga daayo in anagoon cid u jeed qof u jeed cid ceebeene I don't know lacagtani I don't ma aaminsan meesha martay I don't believe wax راسن وكبرت مركا أنا علي محمد سلمان حلوان وله بيانك وحن آدي وحنا إن قانتي دي بدو إتعبت وحن وقولنا مني لبيه طبعا مشروع عن لما استرنا ينطن بيرسنت كي مغين 10% كي بقولي هذا عن نامي إيه أنا كيل
sideed bilood haystay وسيفي 10% كي كم مقنعة dadkii ka maqan way suuragal xagee ku noqonaysaa in qabanno waxa jira jeega kale oo la qoray dawladda hoose ay soo qortay oo dadkii deyn kula loo qoray oo dadkii ay banaanka la taagan yihiin arinta iyada maxaad ka ogtahay anaba mid la yaqo aniga kula hadlay ayaa mid la yaqo oo check caada oo uu qaadnay 200 oo kiish sanadkii hore mar taariikh qaaday ninkii la hawaalay ilaa dalca deyntii hore la armudaha la bixiyo lama bixin deyntii Axmed Samir la kala wareey gudoomiyaha la garanayo laba laab konton laab gudoomiyaha banka ka waran isaga deynta uu sheeganayo waa system oo taa la baari doona system uu sheeganayo taa ma laakiin waxaan ka hadlayaa inay bankuna uu leeyahay ma ana afkiisu gudoomiyuhu yiri saddex bilood soo socda lacag ku qaadanaysa bankiga qaadan I don't know they say ku tahay ma garan way deyn meel ka timaada 40 milyan baa soo galay daily maana ku jirin kab uu ku jirin ma garanaysa ayna ku jirin daily collection ayna ku jirin ma garanaysa oo kasta ko kaliya ta soo xiro sidee suuragal ku tahay ma isli banki u dambeeyay oo shalay toolaha 3 milyan buu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ku dhafashay ama baad لو كمان سيدا أنا حلبان قلها دجاجها الدجاج قبل مرعب ويا عجوز عبدالله الشهاد وحنا وقت أني قلها دجاجها وحيد إنه الكوكا لو كل دينه ما هي الأمة ضيّد نصاد ورث وحقوق والله أياه مصيدعين كل دجاجها لما تجي خسارة أياه العين أما أسمع يا خسارة أيارع وما أنت هو ميد محاس قدر بالله كان سيدا واحد أركسان عرفتي كنت تردين مثالين هذا مركي هرب بحيل عكس هذا الجرن ولا ما لا مرتين ما أنت أنا كنت تسوفوني أيار حلو ما أنت تلا صليقة وحيالي مركي مدحوني بيت جامعة لقوا ما موسى وحركة كبوي واي تذكرت مدحوني قرنك أو شرف يعيسية ماموس نجمودن وحان تير أنتو حركة كتير بريتون القبسان ما حي قولك نقنص ما حي قبل يكون نقنص عيب كوي باتر وحان دواها كان المدة قبل كجبلي يلبس يوت هير قرن الوقت بيننا إني جبلي يضاد دموع الدخل بدن أي كهردي نظام كي دور ده بيكون شغالين سياحة خرمت يضاد دخل دور ده وصل قراي هاي دخل كفيلان ما قرن كرنا صوت كأنتي إن بنك الدين وكذا والله يلاحظوا مدير تالي العقد لهذي كراو مجد أو بنجا عليه ما قرأ كرنو والله شغلت عادي مرة اللي ما تبى بنجي يدور دوسوا حق الحياة سكون بلاد وحن قادر كرنا ما تكلوا حق الدقيقة والمدحوينه وشقية إن قلها الدجاج فرجلين تعرفوا هي قبلها الدولة قاركود اللي قدامي أو يكون هي المسلمين تقبل كسجد أو يكون هي المسلمين تقبل كسجد أو يكون أبلغين يعني وقريه إن قلها فرقلين اللي قدامي وحكروا عن شيء خسارها ماشى كدعي هنتدور كايا قعدت بوهي كل هوشي سيمي كويس قبل نقول سلام دوسنا قياسيو مركا waxa leeyahay meeshaasi talaabo sharci waafaqsan halaga qaado hadii aan la qaadayna oo isla u qulsanayso golaha deegaanka meesha risaaleeshman yan dibina waa shaqo ka tagina sababta waxa laga qaban karaa jinta assalamu alaykum warahmatullahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين أما بعد السلام عليكم
طبعا waxaan shirkan jiraadkan ugu qabanay dib soo gaadhay degmada Gabiley golaha deegaanka dhammaantii ku ceebeysan yahay haddii aan wax laga oranna ceebtooda la wadalayay imir maanta waxaa halkan dhacday in agab dawladda hoose lahayd oo ay iibsatay 2013kii maanta ay maxkamaddu waaran ku soo qabatay la xiro iyadoo ay miisaaniyadda ku jirtay 2013 ay tahay in lacagtaasi baxday July bishii 7 ka hore 2013kii وطلاب بوليس تيتم بيجين بقى وجهتي ما أنت ندين نقصد العضلة قبصنا لما الناس وين عقبتي يسكروني حاجيتي جوالدي كلا يوم مدحوين أحد محل حوس سيراي وهو بركة شعر وحرق النوجة شرعي يعني معين ما أنت مدن مدحويني عقبتي دي حصل قبيل بسوكر ديني ما تكلنا قاطع ولا هي لما هم مدحوين عنه ما هرجع مع المدحوين بعيبين وهم مدحوين وما نايرن waxaan la nabuliyay in xal looga jirto waxaan degmada Gabiley ku soo kordhinay ayaan looga jiray maanta jaamacadda shahaadada bixinay in xal looga jiro oo looga jiro garamay meesha diintaas ka soo baxay mar labaad bay 2014 bay ku jiraan miisaaniyadda shaqaalaha maanta shaqaalaha xashiishka xaariyay ma hayaan maanta gunadooda iyo shaqada toomaras mushaarkooda ilaahay aruriba iskuuladii taxaamudii laga soo riyay oo waxaan ku ceebaysanahay dhammaantii iyo golaha deegaanka dadna لأن جماعة سوين هنا الجبيل يديبوا رهم هنا القرب هذا اللي نسوي ما تصنع عدي من الجبيل كسوق رده هذا اللي يقول منا هو حلو عيبسين وكمان اللي حلو حربا قدرية وندقنين قدرية تقنين قدرية دينا حفر بدنا بنك السومالي لازين يدور ده حسين بتوجيه يدي وزارة المالية دي بنك تقنين ما نسينا نحكينا هنا دور ده حسين لعك عن قول حسين أي سواء معين واي واحد أمان ممكن ينام دين الله ما بيجي تدي تخلي كان لقى بدنه هذا كي هرن نقول حساب تبين من دين النسيو تقني باكستاني أبغى يكون العيد دين بالله هاي أنا أقول عن وصوت الدين عن قدر بنا عين لصومري أو دين من قدر هذا ما حنا نقبل ضرب الأمور وسألت ما الناس اللي قلنا waxaan maanta dowladda guud qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Xamsi ayo leenahay Gabiley waxa uu baahan tahay gurmad degdeg ah meesha codka doonaysan waa Gabiley hadii hagaag weydana horumar baa dalkeena wax ka qaban doonaa Gabiley horumarka ka muuqan waayo oo ay dhibaato daba ka muuqato iyo musuqmaasuqa oo Gabiley meesha codka doonaysan way mudane madaxweyne ee hadda taa ku taageersanaay oo waxay inoo yahay waxa uu baahan gurmad degdeg ah loo galo iyadoo maalin walba ay Gabiley masaakiin fara badan joogaan inaan hantidooda iyo cashuurtooda iyaga laga qaaday kada ay deyn daba loo qabsado oo Gabiley maanta difis degmooyinka deemaysan ay noqoto maanta oo waxaan loo fadhiyay oo waxaan maanta ka qaybinay agaftii dawladda hoose lagu shaqeeyay taas sanadkii samtiga oo maanta la soo hayay heshiis baa laga galbeeyay heshiiskaasi oo heshiis aan qof iyo inuu geli karaan aqliga aqoonay sheegay waxa maanta ka baxday meesha mas'uuliyadii dawladnimada lahayd dawladnimada ee bangiga isku aaminay Gabiley maanta qofka aad aragtaa jeeg ku sita uu leeyahay ka sanadkii hore laga qoro oo ilaa maanta bangiga la wareegsanayo ma waxay noqdeen jeegagii lahaa security-ga la ilaaliyo ku qofka la iskaga furfuray loo yarsaacay ilaa uu wareegso dibta ka dhacday oo tuu baahan Gabiley in gurmad degdeg ah lagu galo ma aha lacagtooda yuro lagu tawashleeyo lacagtii dibaleeyo yuro la tawashleeyana oo yuro lagu tawashleeyo iyadoo masaakiinta mushaarka shaqaaluhu leeyihiin maalin deyn loo soo qoray la soo diro konto oo doolar yuro ku tawashleeyno shaqaalihii xaariin mushaar leeyihiin oo waxa loo fadhiyay oo waxa akhrin la xisaabi doono ee adduunka wali la isku xisaabi doono iska tagin aakhirana adaabtii yartiga ay nagu sugayso wabillahi tawfiiq Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley